العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الأحبة في الله weli waxaan ku dhex jirnay fariimihii aan u diraynay dhalinyarada muslimiinta ee maanta jooga waa fariintii lixaad fariintani waxay xambaarsan tahay akhlaaqda dhalinyarada muslimiinta looga baahan yahay rabbi tabaaraka wa tacaala faray kuna jecel yahay rasuulkiisuna sallallahu alayhi wasallam kula taliyay oo uu amray akhlaaqdaasi way ballaaran tahay laakiin midda ay dhalinyarada muslimiintu ugu baahi badan yihiin waxaa ka mid ah dhowrsoonida iyo cifada iyo in la iska ilaaliyo in shahwadu kula tagto shahwadu ka tanbadato meel xun kugu rido iyadu ku hogaamiso ku adoonsato aad isxakamayn kari weydo haddii shahwadaadii aad ka adkaan weydood xakamayn kari weydo bimacnaa dadnimadaadii dhimatay karaamadaadiina dhimatay qiimahaagiina dhimay ilaahay agtiisa tabaaraka wa tacaala waa ka fogaatay sidaas daradeed baa nabigeenu sallallahu alayhi wa alihi wasallam dhalinyarada la hadlay wuxuu ku yiri dhalinyaroy cidiini awoodi karta guurka oo tabar u heli karta oo kharashkiisa iyo dhaqaalihiisa heli karta ha guursato guursada maxay yeelay indhihiinana uu ilaalin guurku oo xumaanta inaad fiirisaan buu ka ilaalin xubinka tarankana waa xifdinaya oo zinadii faaxishadii baad xaaskaaga kaga dhowrsanaysaa wuxuu nabigu sallallahu alayhi wasallam cidii kharash weyda ay ku guursato tabar u weyda guurka ha soomo soonkaasa shahwadiisa jabinaya laba goraba is ilaali ama guur isku ilaali ama hadaad guur weydo soonka iyo waxyaabihii kaleed ku ilaashan karto ku ilaashan laakiin marnaba zinaha ku dhicin iyo xumaan isdhowr waa mid quraanka kariimka sidoo kale ilaahay ku tilmaamay وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله الله وحول الله يا dadkii mas'uuliyadii xilka muslimiinta hayay awliyaa umur kiba الله يا الله wuxuu leeyahay tabaaraka wa tacaala dadka aan xaasaska lahayn ama dumarka aan rag lahayn u guuriya buu Allah yiri tabaaraka wa tacaala kadalika adoomadiina rag iyo dumarba u guuriya hadday fuqara yihiin oo waxba aynan haysanin Allah baa deeqaya ilaahi baa siinaya waata nabigeenu yiri salawaatu rabbi wa salaamu alayhi saddex inuu u kaalmeeyo ilaahay baa damaanadeeda qaaday saddexda waxa kamid ruux guursanaya oo doonaya inuu guurka isku ilaaliyo ilaahi waa waasic وغني وحول بواهيا وحبكما أتكا سيداس درادد وقوريا فقراء إنيهين نقورك هوجود ديدين إلهي بدقيه كذب إلهي وحول الله الله يكوى أن هلي كرين وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله كوى أن هلي كرين وحي كقور سدان هيس إلاليين انت إلهي كسين يوحي كقور سن لهايين هاي استورين هاي حفظيين وسخضها اسكا إلاليين ظهارتها كددالين حمانتها اسكا دورين وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا إلالية إسعلية إسحكمية نفط هذا كأتكو شهوة هذا تشبي اسكا علي الشيطان يوصل هلكا كاسو قال يوصل كدوف صنين الله تبارك وتعالى معاني ذا سينوش ديني
quraanka in badan oo kamida ilaahay wuxuu uga digay muslimiinta rag iyo dumarba wasakhdaasi zinada iyo wixii lamida in lagu dhaco wuxuuna ku tilmaamay magac aad xun baa loo bixiyay fawaahish baa la yiraahdaa wala taqrabu zina innahu kana faahishatan wa saa sabila wa wahadu falhun dabciga saxdi ma ogola aqliga saxdi ma ogola iska badaa shariica ilaahay xaqiisa ka soo degday iska badaa waa wax laga yaqsoodo waa wax laga cararo waa wax laga fogaado sidaas daraadeed ba daaya kaliya shariicadu kuma gaabsanina jid kasta oo lagu gaari karana way xidhay irid kasta oo dadku ku gaari karaan xagga hore laga xidhay markaas waxa la yiri fiirada xaaraanta iska ilaaliya dumarkii ragii ajaanibta yeena isla khalwoonin dumarkii safar xaraamay safar mahram la'aan aysan gelin وهكذا tilaabooyin ka horeeyaba zinada dhicitaankeeda ayaa la jideeyay oo lagu ilaalinayo dadka lagaga fogeynayo quraankuna wuxuu cabiray ha u dhawaanina samaynina ma ha u dhawaanina waa asbaabta keenayso dhan ka fogaada waa sidaas daraadeed dhalinyaroy ha wasakhoobina ha is wasakhaynina rabbigii idin abuurtayna ha ka fogaanina akhlaaqda wanaagsan iyo dhaqanka wanaagsanna ha burburinina oo ha halaynina idinkuna ha is halaynina mid labaad naftaada ha kharibin oo ha halaynin oo ha wasakhaynin waxa xigta oo nabigeenu tilmaamay sallallahu alayhi wasallam dumarkan iyo hablahan aad halaynayso eed xumaynayso karaamadooda ku ciyaarayso sharafkooda dilayso waxay la mid yihiin kuwa kula dhashay oo kale ama ku dhalay lama jeclid dumarka qaraabadaada in lagu sameeyo waxa aad ku sameynayso dumarka kale sidaad naftaada la jecel tahay dadka la jecelo waxaada naftaada la rabin dadka ka ilaali iyo ehelkooda iyo dumarkooda ala daaladu sidaasay ku jirtaa wanaaguna sidaasuu ku jiraa وانا معناها او تلمامه حديث النبي صلى الله عليه واله وسلم دوده دحمرتي iyo wada hadalka dhaxmaray nabigeena iyo wiilkii dhalinyarada ahaa salawaatu rabbi wa salaamu alayhi nabigeena sallallahu alayhi wasallam iyo wiilkii dhalinyarada wiil dhalinyarada nabiga u yimid sallallahu alayhi wasallam sida ahmed ay warinayaan tabarani wiil dhalinyarada u yimid wuxuu yiri rasuulka ilaahay oo zinada iyo ogolow ii fasax aan zinaysta ii fasax طبعا ايمان با كجرا والا حدوسا ايمان iyo xishood ku jiri lahayn idan ba muusan weydiistay nabiga sallallahu alayhi wasallam banaankiisu ka qaraaban laha wailla waxa nabiga u keeno u weydiisanayo in loo fasaxo loo idmo iimaan ba ku jira wuxuu isleeyahay wuxuuga ruqsa ama heli kartaa rasuulka ilaahay oo zinada iyo idan saasuu ku yiri dadkii baa ku kacay wiilkii waa lagu qayliyay waa la isugu tagay war waxaad sheegaysaa nabiga la dhaaf baa leeyahay maxay tahay waxaad akhriiso nabigu waa ka duwanaa dadka iyaga salawaatu rabbi wa salaamu alayhi macallin dadka wax bara midka ugu usluub fiican buu ahaa dadku markuu khalad ka dhaco nabigu sallallahu alayhi wasallam kuma qayliye jirin ma handadi jirin bal nabigu sallallahu alayhi wasallam intuu dajiyo tartiib wax ugu sheegi jiray waa yeeray nabigu wiilka dhalay kaalay soo dhaw agtiisu soo fadhiistay nabigu si xikmad loo aad u qiimo badan buu wax uga dhaadhiciyay wuxuu ku yiri zinada aad codsanayso hooyada in lagu sameeyo ma la jeceshahay markaasuu yiri maya ilaahay baan ku dhaartay lama jeceli mana rabo hooyada in lagu sameeyo ilaahay madax furashadaada ha iga dhigay nabigu wuxuu ku yiri sallallahu alayhi wasallam dadkuna hooyooyinkood lama jecla dumarka qaarkood waa hooyooyin dad bay dhaleen dadkay dhaleen lama jecla waxa in lagu sameeyo su'aal labaad buu nabigu weydiiyay sallallahu alayhi wasallam gabdhahaaga gabadhaada ma la jeceshay hadaad gabadh dhali lahayd gabadhaada in xumaanta lagu sameeyo ma jeclaan lahayd maya wallahi buu
إلهي مدح فرشاد هذا هي قدقه النبي محمد صلى الله عليه وسلم ددكنا قبله هذا الله ما تشعله دمر كان الله ده يقول فصح ركبة علي ويقبله ويهين والدين تودي أبو هذا الله ما تشعله هو ينكودنا الله ما تشعله سؤال سدحات النبي ويدي محمد صلى الله عليه وسلم ولا شام الله تعشى إلا قسميه ما يبوي لما لا بتشعلي مدح فرشاد هذا الله يقدقه تنا ركبي ولا الله تهي ولا لهيدنا الله ما تشعله إلا قسميه إيدا ما الله تعشى ما يا دمركو ركبي إيدوين ويهين يا دمر لما نتشعله إلا قسميه هبريرتا ما الله تعشى ما يا dumarku habaryaro waxay u yihiin dad kale dadkooduna lama jecla in lagu sameeyo Allahu akbar wuu fiirso waa miisaanka saxda ah walaasha lama jeclid oo hooyada lama jeclid oo habaryarta lama jeclid oo gabadhaada lama jeclid oo eedada lama jeclid oo qaraabadaada lama jeclid oo hadii xumaanta lagu sheego waa dagaalami oo dilbaad ka xigtaa oo karaamada iyo sharafta iyo cirdigaad ilaalinaysaa kuwan aad xumaanta ku sameeynayso soo iyagoo kala ma aha ميزان كاسو النبي قد دغاي صلوات ربي وسلام عليه waxaad naftaada la jeceshahay dadka la jeclow ehelkoodana la jeclow waxaad ehelkaaga la jeceshahay dadka ehelkooda la jeclow waxaad naftaadii ehelkaaga la nacab tahayna dadka ehelkooda iyo naftooda la nacbow adoo kale way dadku markaasuu nabigu sallallahu alayhi wasallam wiilkii yara gacanta saarayo u duceeyay wuxuu yiri ilaahu dambigiisa dhaaf qalbigiisana daahiri xubinkiisa tarankana ilaahu xifdi buu nabigu sallallahu alayhi wasallam dhacdada wixii ka dambeysay wiilkii dhalinyarada ahaa oo dib dambe xumaan fiirinaya lama arkin darsigii nabigana waa qaatay ducadii nabigana sallallahu alayhi wasallam ilaahay baa u aqbalay waa darsi duruusta dhalinyaradu inay wax ka qaadato u baahan quraanka kariimka wuxuu inoo sajilo inoo qoray miisaal aad u cajab badan oo isagana tusaale oo dayasho mudan waana qisada nabi ilaahi yuusuf alayhi wa ala nabiyina salatu wassalam fi surati yuusuf kutimid qisa cajab badan waay wiil dhalinyaro ah oo da'dii dhalinyaronimada jooga oo walaaladii ay ceel ku rideen oo ceelkii ilaahi ka saaray oo guri nin wasiira uu lahaa tagay oo haweenaydii uu ku hoos noolaa ee adoon ahaanta u haysatay sayid ahaanta u ahayd ee uu ku hoos noolaa ay damaaci ka galay sida quraanku tilmaamay damac baa galay way isu diyaarisay iridihii bay xidhay asaguna waa dhalinyaro waa haweenay guri fiican iyo reer fiicanna ka dhalatay oo wasiir baa qaba sida la sheegana naa qurux badan bay ahayd wixii dumar loogu xilan lahaa oo dhan baa diyaara wax alla wixii laga cabsan lahaayoo meeshay ka saartay ayadii baa dalbanayso isagu ma dalbanaya iyada raadsanaysa gurigu waa xidhan yahay oo wax walba waa diyaar isaga waa qariib oo dadkiisii ma dhex joogo ruux markuu dalkiisa ka meel aan laga aqoonin jooga xumaantu waa u fududahay laana cidna kama xishoonayo qariibna waa yahay dhalinyarana waa yahay shahwadiisa meeluu ku gutana ma jirto xaas iyo adoon midna ma laha ومع ذلك ويوهن جبتي ووحي كتري هدادا سمين حبسيقات كؤري هو الدلوبي انتارنا يدو لسمي لن يرانا اويه وحي الرك كتري با كتري وحي لن يرى كتري با كتري ومع ذلك نبي الله يوسف يسوق لن يراه وإنتا صورنا ديار قرودي يهدنا وحوري معاذ الله مقن الله marka uu yeeratay hayta laka gobashi waa diyaar iyaduna waa diyaar soo dhaw kaalay maad allah magan allah ilaahi baan magan u ah innahu rabbi ahsana mathwaay guriga ninka iska leh waa sayidkaygii deegaankaygu hagaajiyay gurigiisii baan ku noolahay gobashiisa inaan haleeyo ma aha innahu ahsana mathwaay innahu la yuflihu adh-dhalimun ظالم بان نقونيا من الليبانيا هدان غوغش نينكا انت احسان اي سميي غوغشي سمركان هلي ظالم بان هي الهي اكتيسنا ظلم بان كغلي ساس دراد هويني يحي رالي اهو ما سمينيه
ومري إريتي ولا يسكون رفاضي ومردي سجاحدي أو عراري أو يدبا أرضي كدب وحا كدب بيسمين الصمرين مقنعين هوينكي مقالة إسو كنتي sheekada dii markay magaalada gashay si ay u qanciso haweenkii bay isu keentay gurigeeday ku soo ururisay yuusufna meel bay ku diyaarisay markay meeshii soo fadhiisay hawla u dhiibto hawlihii hayaan bay tiri ukhruj calayhim ku soo bax yuusufow yuusuf hadduu soo baxay ilaahay qurux buu u dhaliyay sida nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam quruxda bini aadamka niskeed yuusuf baa la siiyay reer qurux badan buu ka soo jeedo ilaahay qurux u dhaliyay dumarkii haddii uu ku soo baxay iyagii dhabba waa kala badbateen waana isgaran waayeen hawshii ay hayeen waxay bilaabeen inay farahooda iyo gacmahooda googooyaan waa isgaran waayeen wiilkanay ku indha saraxaadeen markaasaa waxay yidhaahdeen bini aadanba mehe waaba malaa'ig ayagii markay garawsho ka heshay ayay markaa hanjabaad bilowday hadduu yeeli waayo waan isku dayay mar kale dayn maayo hadduu yeeli waayo walla inaan xabsiga dhigi oo uu waliba dulloobi markaa dambe sida quraanku tilmaamayo makrigii iyo dhagartii iyada kaliya kuma ekaanina magaalada dumarkii magaalada iyo wixii meesha ay isugu keentay mid walba waxa hammi ka galay inay habeen yuusuf la siixato sidaas daradeed baa quraanku ka cabiray kaydihinna dhagartooda kulli waa isu tageen يوسف محو سمي مرك مقالة دم باي سوق تكت وانا ويل غريب أدون أهم بالله هيستا وانا اللي يرو باهيد الرك كشرتا محو سمي وحول ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه ربي يوم إن الحبس قالوا وأن كد اللوبو أيا إيدان توحى أي يقوي يعني إن الزنا يفاحش كلها xumaantooda haddaadan iga jeedinin oo adigu i kaalmaynin oo i ilaalinina xumaantan waan ku dhici allah i ilaali nabiyullaahi yuusuf calayhi wa ala nabiyina salaatu wassalaam waa kii xabsiga galay muddo dheerna xabsiga ku jiray ilaa ilaahay markii dambe kaga soo saaray riyadii boqorkiyo qisada aad garanaysaa bal ka warrama soo midaal iyo tusaale mudan inaad ku dayataan maaha قصة كلا أحاديث النبي قلت المانتي صلى الله عليه وآله وسلم قبل أيا أبارا دعي نيني قرابة هاي المدرب أباهتي وحي تيرو إكالمي وريكالمي مر إلى النيت وأين أبارا تشيرين ردبات تشيرين بودم حي إنو حمان كسبي نفتي هذا كدل بضي ويديدي أبارا دعي حولي بابا باي قبل وي قاتشوتي وي صوم مضتي waxay tiri ikaalmeyn adeero maanta hoostaadan joogaa icaawi fursadaas uu damcay inuu kaga faa'iideysto markaas wuxuu ku yiri hadaad rabto inaan ku caawiyo isu kay dhiib ma hayso wax kale way isu dhiibtay way ogolaatay laana duruuf baa wada markay isu diyaarisay oo uu labada lugood dhexdooda fadhiistay oo uu hawshii inuu qabto diyaar u yahay ayaa waxay ku tuurtay kelimad sida gantaalkii dhinaca kale uga baxday waxay ku tiri muxaawaladii isku daygii ugu dambeeyay waay warniyahu ilaahay ka baq ka tuntaasi xidhanna ha jabinin ilaa inaad idan ilaahay ku jabiso iyo galma xalaala mooyaane ha jabin ilaahay ka baq bay ku tiri ninkii kelimadii baa kaga dhacday beerka oo wadnaha gaadhay markaasuu booday waa booday meeshii buu cararay gabadhii badbaaday sharafteedii badbaaday karaamadeedii badbaaday ilaahay baa sabab uga dhigay bal u fiirso baahi baa keentay waana dhalinyaro bikaara xumaanta iyo fuxshiga in ay samayso diyaar xoolana waliba waa la siinayaa ومع ذلك وعنتمي ويدي ويلقي كري ويدي ويقادن كري ويدي إلى مركي قدام بيسي حالد ميل أديك أي مريسو أي تبرتو قارسيسي إني تلاهدو اتق الله ورإلهي كبق ورإلهي كبق وميشن هبربرنين إلا إناد كبربريسي إذن إيا فصح الله مويانا إيا قور علالا marka waka tusaalayaasha diintu ina baraysiyo dhaqanka wanaagsan ee leeyno jideen iyo ka isaga waay ma aha dhaqanka reer galbeedka wasakhoobay ma
mujtamacaadka maanta jooga inta badan wasakhoobay ma aha mustanqacaadka iyo qashinka lagu dhexdhacay ma aha karaamadii oo dhimatay ma aha social mediaha iyo warbaahintu waxay baahinaysay ma aha curiyiga iyo qaawanaanta iyo akhlaaq la'aanta ma aha xishood la'aanta ma aha akhlaaq iyo qiyam la'aan ma aha qiyam iyo akhlaaq iyo dhowrsoonaan iyo cifa iyo xag ilaahay iyo wixii ambiyada iyo rususha laga soo gaadhay iyo wanaagga la dhaxlay ayay diinteennu inoogu yeedhaysaa dhalinyarooy dhowrsoonaada dhalinyarooy is-ilaaliya dhalinyarooy shahwadiinna ka adkaada dhalinyarooy cifada iyo dhowrsoonaanta ku dadaala guursada oo guurka ku dadaalo isku ilaaliya haddii aydan guur heli karin awooddiisa lahayna intaad ka helaysaan allah idin kaalmayne ha iswasakhaynin oo wasaqda iyo zinada iyo xumaanta iska ilaaliya sallu wasallimuu calaa khaatami alanbiyaa'i waalmursaliin allahuma salli wasallim wabaarik calaa cabdika warasuulika muxamed wacalaa aalihi wasaxaabatihi ajmaciin warda allahuma can alsaxaabati waltaabiciin wataabicihim ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ردنا إليك ردا جميلا ووفقنا لما تحب وترضى اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك